بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. waxaan ku guda jirnaa kooraska AWS Solution Architect. waxaan darsiga caawa aan bilaabi doonaa jabtarka lagu magacaabo IAM oo laga soo gaabiyey Identity Access Management. waxaan bilaabi doonaa IAM Identity Access Management. intaan u guda gelin tafaasiisha jabtarka, insha Allah dhowr cashir ayuu nala socon doonaa. waan qaadan doonaa IAM 2 cashir ilaa 3 cashir, kadibna waxaan ka sameyn doonaa projectii isku xiraya dhammaan wixii aan ku baranay jabtarka. hadda overview idinka siiyo si guud ahaaneed, waa maxay mowduucan. keliya mowduucan markastoo aad maqasho IAM ha kugu soo dhacdo laba arrimood: userska iyo permissionskooda. intaa keliya, wixii kale intaana kasii ambaqaadi doonaa, laakiin basically mar haddaa maqasho IAM macnaheedu waxay tahay waxaa laga hadlaya waa userska wixii quseeya iyo permissionkooda. permission waa waxa ay qaban karaan. matalan haddaan hal tusaale ku siiyo, matalan kasoo qaadba kambani kamid a kambaniyada ayaa waxaa mas-uul kaga tahay AWS cloudkooda. matalan kasoo qaad, magacaaga waa Anas, waxaa tahay adminka AWS ee kambaniga. dabcan gudaha AWS sidaan naqaano waxaa ka shaqeynaya dhowr qof oo kala duwan oo task kala duwan kala qabanaya. matalan qof baa wuxuu qaabilsan yahay EC2 instanceska, sida loo abuuro, sida loo delete gareeyo, arrimaha ku saabsan EC2 instanceska. qof baa waxaa laga yaabaa in taskiga ama roolka uu ku leeyahay gudaha kambaniga ayaa ah in kambaniga uu soo galo cloudkooda AWS cloudka, oo mas-uuliyaddiis ay tahay VPC. wixii quseeya waa jabtarkii aan kasoo baxnay VPC. waxaa matalan suuragal oo kale qofka inuu qaabilsan yahay databaseka. matalan laga yaabo inuu yahay qofka matalan database admin ama database administrator. saa darteed gudaha cloudka sidaan ognahay waxaa lagu sameyn karaa databaseka, sidoo kale web applicationska, containerska, automationka, artificial intelligencega, securityga cloudka. waxaa meeshan kaaga soo baxaya marka taskiska laga qaban karo gudaha cloudka aad u tira badan yihiin. hal qofna mas-uuliyadda ma wada qaadi karo oo ma soo koobi karo oo ma dhihi karo anaa mas-uul ka ah VPC-gii databaseka dhammaan. meeshan waxaa imaanaysa marka in qof kasta la siiyo role, in qof kasta la siiyo dowr iyo kaalin uu ka ciyaaro gudaha cloudka company. haddaan marka dib usoo laabto marka sheekada, waxaan joognay userka lagu magacaabo Anas, inkastoo aan qoraalka si fiican u qorin. userka Anas maadaama uu yahay adminka cloudka, waxaa matalan soo hoosgalo dhowr qof. matalan haddaan task yar qaadano, kasoo qaad matalan taskiska ama aan sameyn doono ama cases aan dhaho. matalan case 1 oo kale, waxaa jira user lagu magacaabo Cumar tusaale ahaan. userkani wuxuu mas-uul uu ka yahay matalan wax allaala wixii quseeya EC2 abuuristooda, tiristooda ayuu mas-uul ka yahay. kaa waa case waan practice gari doona caawa. sidoo kale matalan case kale haddaan qaadano, matalan case 2 oo kale, user waxaa jira kasoo qaadba la dhaho Axmed. Axmed waa matalan consultant. matalan waxaan leenahay consultant ayaan leenahay, wuxuu matalan kambaniga ka saacidaa oo ka siiyaa la talin iyo arrimaha ku saabsan wixii quseeya matalan EC2 ayuu consultant ka siiyaa. مثلا كيس 3 oo kale haddaan usii gudbo, insha Allah keyskan waxaan ula jeedo aan ka damacsanahana haddaad ila sii fahmin si fiican usii sharxin oo dib ayaan ugu soo laabo doona insha Allah, waan sii waadixi doonaa. مثلا case 3 oo kale, waxaan haysanaa user lagu magacaabo tusaale ahaan Aamina. مثلا Aamina waxay matalan mas-uul ka tahay wixii quseeya matalan IAM. مثلا kasoo qaadba waxaan haysanaa another user case 4 iska dhig. waxaan haysanaa user kale oo lagu magacaabo matalan tusaale ahaan Cabdi. asagana haddaan iska soo gaabiyo consultant wuxuu ka yahay kambaniga wixii quseeya IAM-ka. okay, aan isku xir marka dhowrkan fikrad waxaan ula jeedo. matalan userka Anas waxaan ku magacaabaynaa ugu horeyn waa root user, waa userka abuuray ama sameeyey, oo matalan wuxuu u sameeyey kambaniga AWS account. matalan saa darteed userka Anas asaga waa root user, waa root user. waxaan leenahay accountkiisa waa root account. macnaheedu waxay tahay haddaan soo koobo, userkan Anas wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano full access. wax kasto ayuu ka sameyn karaa gudaha AWS. matalan simple ahaan oo kale, adiga markaad account samaysatay sida coursekan ugu practice garayso,
account-kaaga markaad samaysatay, cinwaanka hadda adiga account-ka aad ku gasho waxaa leenahay waa root account ayaan leenahay. wuxuuna leeyahay full access, ayuu wuxuu u leeyahay gudaha cloud-ka. wax aad doonto ayaa ka samayn kartaa. haddii aad rabto mathalan inaad wax tirto, wax ku abuurto, wixii ku saabsan VPC, wixii ku saabsan EC2, serviceska ku jira cloud-ka oo dhan ayaa waxa u leedahay full access. waa userka anas. hadda halkan ayay joognaa inaga mathalan darsiga qofka ila daawanaya insha allahu tacaala waxay joogtaa halkan ayay joogtaa caawa. oo account-kaaga waxaan leenahay waa full access, waxaan ku magacaabeynaa root account. xitaa markaa aad login ku samaynayso, haddaan isla fiirino mathalan tusaale ahaan haddaan galo AWS console oo kale, haddaan halkaas la imaano, markaad galayso account-kaaga oo aad login ku samaynayso, innaga waxaan soo sameynaa sida markaan dhahno sign in, tusaale ahaan waxaa kuu soo baxaya dhowr option. dhowrkan option insha allah tacaala caawa baraktiisan ku samayn doonaa, haddana fikrad aan kasii qaadanayna. mathalan marka oo aad account-kaaga galayso waxaa haystaa laba option. inaad ku gasho sign in using root user email. haddaa kan keli ku siiyo root user email, wuxuu ii keenay keliya labo option. wuxuu leeyahay mathalan waxaa gelisaa halkan emailkaada geli, kadib waxaa gelisaa passwordkaada geli. halkan waan samayn karnaa. waxaa kaloo jira mathalan optionkaas waa root user. option kale ayaa jira oo ah IAM user, waana dersiga caawa waxaan kaga hadli doono, waa identity access management user. mathalan userada hadda aan soo sheegnay, mathalan dib ugu laabto dersiga, userka anas oo kale oo hadda adiga account-kaaga matalo. marka account soo galayso waxaa kusoo galaysaa sida ma kusoo galaysaa, waxaa leedahay I am root user, emailkaaga qoraysaa, passwordkaaga qoraysaa, saasaa kusoo gashay. ka waran useradan kale, Cumar iyo Axmed iyo Aamina, isla account-ka adiga aa abuurtay ayay kugula jiraan. waana arki doonaa qaabka aa u abuurayso userada, permission u siinayso. laakiin useradan kale Axmed iyo Aamina iyo Cumar iyo waxaan ku magacaabeynaa ayagana IAM user. markay soo galayaan marka ayaga account-kooda ma dhahayaan waxaan nahay root user ana ma dhahayaan, ilan adiga ayaa account u samaysay oo adiga root userka isticmaalayso ahaan oo kale. waxay aadayaan meesha lagu magacaabo IAM user ay keli ku siinayaan. markay halkan keli ku siiyaan waxaa laga dalbi doonaa marka waxa loo yaqaano account ID ayaa laga dalbi doonaa. waxaa leeyahay account-ka idinka aad galaysaan oo mathalan usernameka iyo passwordka la idinkaga sameeyey ID-giisa halkan ku qora. mathalan sidee halkeen ka helaya mathalan account ID-ga. haddana account-kayga soo galo oo aan tagay halkan, waxaa arkaysaa meesha mathalan oo kugu qoran account ID. okay مثلا waxaa ku aadan keliya darsiga. okay hadda waxaa arkaysaa meesha waxaa kugu qoran account ID. hadda kan keli ku siiyo mathalan oo halkan imaado, markaan ku galayo user caadi ah waxaan leeyahay account ID-gayga waa sidatan. marka intaan sameeyo next ayaan leeyahay. marka next dhaho, isla markii wuxuu AWS ay garanaysaa in aniga aan rabo inaan access ku sameeyo galo account-ka lagu magacaabo top empower. okay markaa soo galo wuxuu leeyahay userkaada geli. hadda waxaa imaanaysa marka kaalinta Cumar iyo Axmed iyo Aamina. Axmed iyo Cumar iyo Aamina useradan kiiska aan ku sawiray dibna ugu soo laaban doona xir kadib. halkan bay gelinayaan marka userka iyo passwordka aan u sameyn doono caawa oo darsi aan ku bar doono. marka halkan gelin ay sign in dhahaan, waxay geli doonaan isla account-ka adiga ku jirto, laakiin waxaa lagu kala duwanaa doonaa marka permission-ka. ma u leeyihiin permission waxyaabaha qaar mise ma u lahan waxyaabaha qaar. haddaan sii wado marka weli introduction-ka ku jiraa mathalan haddaan sii wado waxaa imaanaya marka halkan. hadda waxaan fahnay inuu jiro user lagu magacaabo root user. mathalan waxaa samayn karnaa user ayaan samayn karnaa mathalan oo ah full access, oo mathalan permissionkiis u yahay full access waan samayn karnaa. waxaan kaloo aan samayn karnaa inaan sameyno user lagu magacaabo Cumar. tusaale ahaan userka Cumar markaan sameyno bilowga hore ma lahan wax permission ma lahan, waan arki doonaa. مثلا user account u sameysay iyo Cumar oo kaala shaqeeya gudaha company-ga cloud-ka company-ga. marka userka san u sameyso, userkaasi wax permission ma lahan, wuu soo gali karaa console-ka laakiin wax uu qaban kara ma lahan. waan arki doonaa taa. waxaa bilaabanaysa marka meesha waxa loo yaqaano permission. waa maxay userka shaqadiisa, roolka uu ciyaarayo waa maxay. hadda cases-kan isla dul marna marka userka Cumar markaan account u sameyno bilowga hore oo account-kiisa soo galo, waxaan arki doonaa inuusan awoodin inuu wax qabto, wax dhan ma samayn karo.
kaasoo qaad marka userka cumar waa shaqaale ka tirsan shirkaddan cumar waxaa loo shaqaaleysiiyey in uu u qaabilsanaado shirkadda wax alla wixii quseeyo EC2 instanceska waa infrastructure as serviceka. waxaa siinaysaa marka userka cumar permission waxaa u siinaysaa oo ah full access ayaa u siinaysaa inuu wax kasta oo la xiriiro keliya EC2 uu samayn karo. full access for EC2 instance ayaa u siinaysaa. كوا كيس 1 هذا سلفها أنا مالنا إن شاء الله تعالى كيس 1 حول جيده إن أنا يوزر عمر لو كان أسمينه كده من أنسينا permission إن ولا هذا full access for EC2 after إيو before ما سميتنا كهر إنتان يوزر عمر لسين واحد permission وأنا أكيد إنه سن واحد بقى بكرين كده ممكن permission سينه وحركة إنه قبكره أو EC2 واللي هي full access توا كيس 1 أوكي هذا لك كجوب حماك كيس 1 وحيمان سمك كيس 2 laga yaabaa مثلا userka cumar inuu u baahday kaalmo مثلا userka cumar asaga wuxuu mas'uul ka ahaa EC2ga waxbaa ka qaldamay waxbaa ka halaysan ama laga yaabaa company-ga مثلا uu cumar u shaqeeyo inay ku wajahan yihiin in project muhiim ay fuliyaan oo quseeya EC2 waxaas marka shirkadda sidoo kale waxay مثلا shaqaaleysiisay oo contract la gashay oo waqtiyeysan مثلا tusaale ahaan kasoo qaad 1 bil ama 2 bil oo kale user lagu magacaabo Axmed userka Axmed lagu magacaabo asaga ma lahan permission uma lahan oo full access uma lahan wixii ku saabsan EC2ga laakiin waxaan siinaynaa wax loo yaqaano read only مثلا Axmed wuxuu sameyn doonaa xiriir arki doonaa Axmed wuxuu sameyn karaa inuu soo galo accountkiisa uu مثلا wix alla wixii ku saabsan EC2ga uu aqri kari kaliya uu fiiri karaa sidoo مثلا consultant u siiyo Cumar oo dhaw Cumarow meeshaas wax ka qaldan meesha wax ka bedel meesha wax ku dar meesha wax ka dhin macnaha qofka wax sameynaya oo EC2 configuration ka sameynaya Cumar halka Axmed uu yahay kaliya la taliye arkay kaliya configuration-ka laakiin uusan waxba ka bedeli karin saadirteed u dhaha marka consultant laakiin laga yaabo مثلا interview oo kale ama مثلا shaqada caadiga ah waxa arki doontaa in lagu dhaho userkaas waxaa siisaa read only see ama lagu dhihin consultant ama lagu dhihin okay كيسك saddexaadna wixii hadda ka dambe waa ila fahanteen u malaynaya qaabka hadda darsiga ku socdo case 3 haddaan aado waxaan haysanaa user lagu magacaabo Aamina userka lagu magacaabo Aamina waxay mas'uul ka tahay tusaale ahaan darsiga caawa oo ah IAM marka hore ha iga lumin kooda hore userka Anas ee account-ka samaystay ama shirkadda account u sameeyay ee ah root account asaga wuxuu leeyahay full access waxaad aan soo sheegnay wax kasoo sameyn karaa ka asaga iska ilow waxay imatay userka Aamina shirkaddu waxay shaqaaleysiisay user lagu magacaabo Aamina marka shaqadeedu waa maxay shaqadeedu wax kale ma aha inay maamusho account-nada userada مثلا user cusub shirkadda shaqaaleysiisay waxaa leeyahay Aamina user hebel shirkadda kusoo biiray fadlan u samee account u samee marka Aamina waxay mas'uul ka tahay userka cusub oo shirkadda kusoo biirayo in account u sameyso inay siiso permission inay مثلا wax alla wixii ku saabsan userkaas inay maamusho waa userska iyo groupiska waan arki doonaa sidoo kale groupka sidoo kale shirkadda waxaa jooga user lagu magacaabo cabdi asaga shaqadiisu waxay tahay wax usoo gaabiyey consultant usoo gaabiyey macnaheed haddaa aragtaba consultant مثلا hadda imtixaan kuu keeno kale aan ku dhaho مثلا waxa abuurtaa user consultant siinay مثلا shaqo hebel ama role hebel macnaha waxa isla marka u fahantaa waa read only macnaha waxaa ula jeeda userka waxaa siisaa read only مثلا user waxaa jira cabdi lagu magacaabo shaqadiisu waxay tahay keliya inuu read only ku sameeyo wax allaala wixii ay Aamina qabanayso oo identity access management laakiin cases-kan intaan practice-kooda u galin marka hore aan note-ka kusoo laabano darsiga hadda waxaan dhahnay userska waa laba nooc waxaan dhahnay user waxaa jira oo ah root user waa userka account-ka ku samaysay waxaa kaloo jira user lagu magacaabo IAM user oo loo soo gaabiyey identity access management userkan IAM user markay soo galayaan account-ka markay soo galayaan waxay u baahan yihiin inay specify gareeyaan account ID inay specify gareeyaan kadib markuu account ID-ga qoro kadib wuxuu qorayaa مثلا user name-kiisa / password-kiisa ayuu gelinaya sidoo kale waxaa jira oo iska ogaataa markasto مثلا permission-kana insha Allah taala waan ku sii dheeraan doonaa kulli hada darsi caawaska introduction permission wax kale maaha waa role-ka ama waa maxay userka aan sameynay ama userkan account sameynay waxa uu ka qaban karo gudaha company-ga مثلا هذا سيجود كوسيو هذا مثلا درسي عاوز كإنترودكشن مثلا permissions أو كله وحأركض أنت مثلا full access مثلا صالحان أو كله وحأركيسا مثلا صالحان أو كله
in specific task oo kale EC2 wixii ku saabsan inaan u samayn karno full access inaan sii karno just مثلا labadan full access aan meesha aan ku kala qoray maxay ku kala duwan yihiin full access kan am admin full access ka kan macnaheedu waxay tahay waa full access for anything wax kasta oo ku saabsan serviceska cloudka laakiin midkan dambe macnaheedu waxay tahay you have full access only for EC2 wixii alla wixii ku saabsan EC2 مثلا tusaale ahaan oo kale waxaan tusaale waxaa ka mid oo kale inaan qofka siino read only wax kasta inaan read only loo siiyo am in read only loo siiyo مثلا permission gaar ah hadda waxaan leeyahay in elephant اوكي waxaa kaloo jiro مثلا جروب جروبسك ان شاء الله تعالى درسيga soo socdana si fiican aan usii practice garan doona جروبسka macna wax kale maaha مثلا waxaa jira kasoo qaad company oo kale dhowr qof oo مثلا ka wada tirsan hal department ee jira مثلا departmentiga security oo kale ama departmentiga IT company userada مثلا ku jiro waa userka مثلا عمر userka مثلا أحمد userka مثلا آمن مثلا صالحان saddexdan user haddii ka tirsan yihiin hal team haddii yihiin oo hal department ka wada tirsan waxaa u samayn kartaa group ay wada geli kartaa waxaa dhigi kartaa dhammaantiin waxaa ka wada tirsan tihiin groupka lagu magacaabo IT taa maxay suuro gelinaysaa marka taa waxay suuro gelinaysaa markii la joogo permissionka halka aad dhihi lahayd cumar مثلا waxaa qabataa waxa maadaama saddexdooda isku group ay yihiin isku department ay yihiin sida u badan tahay waa isku permission waa isku awood waa isku role saa darteed inta hal usii lahayd same permission waxaa permissionka siinaysa groupka qof kastoo groupkaas ka tirsan wuxuu dhaxlayaa marka permissionka groupkaas la siiyey مثلا tusaale ahaan haddaan groupka siiyo permission ah inay lahaadaan full access for EC2 qof kastoo aan groupkan kusoo biiriyo cumar ha ahaado aamin ha ahaato mustaqbalka xataa haddaan user cusub kusoo biiriyo isla markaan userkaas dhaho group hebela ka tirsan tahay macnaheedu waxay tahay userkaas wuxuu already dhaxlayaa oo helayaa inuu leeyahay full access marka groupiska waxaan u sameynaynaa for management iyo maamulis inay inoo sahlanaato مثلا marka waxay group ku kala yihiin waa yara maamuli kartaa group kasta permission wada siman ayaa same time ku apply gari kartaa اوكي يعني sidoo kale ka tagin mowduuc kale oo muhiim ah oo insha Allah taala caawa ka gaarno sameyn doona oo ah multi factor authentication وانا sameyn doona insha Allah caawa multi factor authentication waa mowduuc muhiim ah مثلا saa ka dareemayso multi factor authentication waa in aan isticmaalna authenticationka multiple method ugu horeen وانا taqaanan waxaad aan ka hadli doono insha Allah laakiin ii sabra kii waxa inaan same page wada noqono markii la joogo مثلا security si guud ahaaneed markii aan joogno security markii la joogo waxaa jira waxa loo yaqaano مثلا authentication waxaa jira waxa loo yaqaano authorization waxaa jira waxa loo yaqaano accounting okay authentication waa in validation lagu sameeyaa qof kuma tahay مثلا adiga waxaa rabtaa inaad systemka soo gasho inaa مثلا shirkadda websitekeeda soo gasho waxaa rabtaa shirkadda dhismaheeda inaad soo gasho waxaa rabtaa مثلا in مثلا data معينة aad access ku sameyso marka hore waxaa la weydiinayaa kuma tahay validation of who you are markii مثلا identification lagu sameeyo ama validation lagu sameeyo kuma tahay oo aad systemka soo gasho waxaa bilaaban waxa loo yaqaano authorization macnaheedu waxay tahay okay userkan account uu leeyahay markuu pageka AWS ka soo galay wuxuu qoray cumar passwordkiisa qoray waa authenticationkii markuu sign in dhahay waxaan hubinay inuu yahay valid account userka u qoray accountka u qoray inuu sax yahay passwordka inuu sax yahay marka intaa hubinay waa authenticationkii bilowga hore kuma tahay ayuu ka jawaabay userka uu soo galay systemkii AWS ayuu ku jiraa markuu AWS soo galo oo pagekan oo kale uu ku jiro userka wuxuu doono miyuu sameyn karaa مثلا inta iska tago EC2 instanceska miyuu tiri karaa مثلا IP-yadii miyuu wax ka bedeli karaa taa waxaa bilaabanaysa marka مثلا shaqada labaad oo ah authorization userkani muxuu ka qaban karaa systemka ama websiteka ama shirkadda gudaheeda intuu ku jiro intuu ku jiro accountka مثلا ama intuu websiteka ku jiro ama intuu مثلا ku jiro companyga ama systemka uu ka shaqeynayo wax allaale wixii uu qabtay uu ka sameeyey ma monitor ma ku sameyn karna oo report ma ka diyaari karna taana waa accounting marka security marka la joogo saddexdan waxaa loo soo gaabiyaa
inta badan aan maqlaysaa a triple لأن mid kasta wuxuu ka bilowdaa a ayuu ka bilowdaa authentication authorization accounting marka haddaan yaro dul istaaga marka authenticationka مثلا authenticationka marka imaado waxaan nidhi waa validation of who you are kumaa tahay ayaan validation ku sameynaa marka weyga authenticationka lagu sameeyo waan kala sarsaari doonaa laakiin hadda haddaan si guud ahaaneed kaga hadlo macnaha مثلا marka adiga website galayso ama mobilkaaga markaa galayso ama مثلا facebookkaaga markaa galayso ama haddaad shirkad u shaqeyso oo kale systemka shirkadda oo kale ku shaqa leeda adiga markaad access ku sameynayso waa in authentication aad sameysaa marka authenticationka simple ahaan sidaan naqaano wuxuu noqon karaa username iyo password in lagu weydiiyo lagu dhaho geli username slash password waa simple kan okay authenticationka muxuu kaloo noqon karaa authenticationka wuxuu kaloo noqon karaa tusaale ahaan in email laguu soo diro email laguu soo diro ama text laguu soo diro oo code uu soo gaaro oo codekaas aad geliso مثلا taana way noqon kartaa مثلا authenticationka sidoo kale wuxuu noqon karayaa مثلا tusaale ahaan finger print ama wuxuu noqon karaa مثلا tusaale ahaan oo kale face detection face detection ayuu noqon karaa مثلا in aad farta saarto ama fara laga qaado oo kadib adoo مثلا farahaas lagu ogaado kum aad tahay ama face detection lagu sameeyo ama wixii la xiriir مثلا biometric ama مثلا in scan lagu sameeyo isha waxaas oo dhan way ay noqon karaan sidoo kale authenticationka marka laga hadlayo tusaale ahaan oo kale waxaa lagu xadidi karaa locationka adi aad joogto مثلا waxaa la dhihi karaa if haddii userkaas uu مثلا systemkiina uu kasoo galo waddan aanan ahayn مثلا Soomaaliya block hala saaro مثلا shaqaalaha locationkiisa waa Soomaaliya waxaa la arkay accountka userkaas oo Hindi naga soo galayo ama accountka userkaas oo waddan kale naga soo galayo isla userka wuu noqon karayaa laakiin adiga ka company ahaan waxaa samayn kartaa ka security ahaan saataa ogolaanin waxaa dhihi kartaa okay account hebel wuxuu systemka kasoo gali karaa keliya only for مثلا specific location marka inta hadda aan sheegay waa fahamsannahay waana fahamsantii maasha allah laakiin inta hadda aan kala qaybino waxaa leenahay si guud ahaan marka authenticationka laga hadlayo waxaa la adeegsadaa method ayaa la adeegsadaa methods of authentication methodka wuxuu noqon karaa kow مثلا something you know مثلا wax adiga aad taqaano waxaad taqaano waa maxay marka waa usernameka iyo passwordka مثلا usernameka iyo passwordka waxay soo galayaan something you know waa wax adiga aad taqaano oo adiga aqoon u leedahay oo maskaxdaada kugu jira مثلا waxaa kaloo authenticationka lagu sameyn karaa مثلا waxaa loo yaqaano something you have wax aa haysto waxaa ka mid oo kale in mobilka oo kale text lagugu soo diro in مثلا emailkaaga text lagugu soo diro in application ku jiro مثلا mobilkaaga number code lagugu soo diro codekaasna waan ka hadli doonaa waxaa loo yaqaanaa one time password OTP مثلا tusaale ahaan haddaad kan aan yaro dul istaago facebookkaaga oo kale hadda haddii aad ku gasho sidatan markaad facebook galayso hadduu ku weydiinayo geli usernamekaaga iyo passwordkaada geliya waxaa leenahay waxaa isticmaasha adiga hal method to access your facebook account tusaale ahaan laakiin haddaad samaysato labadan method ayaa wada adeegsan kartaa oo macnaheedu waxay tahay facebook waxaad dhihi kartaa okay aniga marka usernamekayga iyo passwordkayga qoro sida usii hubiso aniga aniga ahay waxaa ii soo dirtaa مثلا text phone numberkaaga ayaa text lagu soo diri karaa text مثلا waxaa kugu soo gaaraya number oo مثلا waqti معين valid ahaanaya haddaa waqti معين isticmaal weyso textigaasi ama numberkaasi qiimo ma lahan okay ama emailkaaga ayaa lagugu soo diri karaa numberkaas ama application oo mobilkaaga ku jira ayuu numberkaasi ku qorimi karaa oo مثلا rotate ayuu sameynaya waan arki doonaa caawa applicationkaas كان waxaa loo yaqaanaa one time password idan numberkan accountkaaga emailka ama text ahaan lagugu soo dirayo ama xitaa lagu soo wici karo oo inta مثلا lagu soo waco lagu dhihi karo numberkaaga waa sidatan iyo sidatan iyo sidatan numberkaas wuxuu valid yahay keliya hal mar hadda hal mar la isticmaalo khalaas mar kale lama isticmaali karo saa darteed waxaa loo dhahay one time password مثلا يا سكور بدن وامان بدن هذا استعمال كليه something you know كليه اما هذا استعماله something you know plus something you have هذا لبا اسكو دaro waxaa fiican soomaha inaan labadan isku daro marka haddaa isticmaalaysid methods of authentication ka laba kamida ugu yaraan marka isticmaalayso waxaa loo yaqaanaa processkaas aad samaysay multi factor authentication goormaan dhihi karaa aniga waxaan apply gareeyey
multi factor authentication waa markii authentication methodiska laba ka mid ah markaa wada isticmaalayso. Okay, aan sii wado marka mid saddexaad ay jira. Mathalan tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay who you are. Kan waa biometric. Biometric macnaheedu waxay tahay fingerprintigaaga scan in isha laga qaado codkaaga oo kale. Mathalan waxa la wixii ku saabsan biometric ahaan adiga kugu saabsan oo kuma aad tahay ku saabsan waxa u isticmaali kartaa as factor ahaan oo method ahaan ay u isticmaali kartaa. Mathalan tusaale waxaa dhihi kartaa aniga mathalan marka username-ka iyo password-ka iga qaadid kadib scan saar isheeda ama fingerprint inaan sameeyo. taa mathalina waa who you are. Sidoo kale waxaan leenahay for your location meesha ay joogto. laga yaabo mathalan in usernamekaaga iyo passwordka uu sax yahay fingerprintiga aad samaysay ama takasta lagu soo diro okay yahay laakiin locationka aad joogto uusan ahayn meeshii loogu talagalay inaad ka soo gasho. markaas haddaan soo koobo si guud ahaaneed laba ka mid a kuwa markaad combination ku samayso aa wada isticmaalayso waxaa leen at least aan ula jeeda at least laba ka mid a markaa isticmaalayso waa multi factor authentication waa laba kala duwan. Mathalan maaha inaa hal qodob laba mar kusoo celinayso waa mathalan 1 iyo 2 oo kale ama 2 iyo 3 ama 1 iyo 4 combination markaa isticmaalayso waa multi factor authentication. marka waxaa fiican haddaan soo koobo warka waxaa fiican multi factor authenticationka marka laga hadlayo in userada kambaniga inaa u samaysid multi factor authentication waana qaadan doonaa gaar ahaan userkaaga ee mainka ah ee root userka waa in uu lahaadaa multi factor authentication waa inuu lahaadaa ilan kan haddii laga access gareeyo oo compromise lagu sameeyo account-kaaga dhan halis ayuu ku jiraa. practice aan gudagalna marka bismillah. hadda ani waxaan ku jiraa account-kayga ku jiraa. marka hore waxaan ku hormarayaa multi factor authentication maadaama muhiim uu yahay qof kasta waxaan ka rajeynaya haddaad already ba samaysan inaa caawa wixii ka dambeeya samaysatid. waxaad tagaysaa halkan ayaad tagaysaa mathalan account-kaaga magaciisa ayaad tagaysaa. marka halkan tagto waxaad tagaysaa security credentials ayaad tagaysaa meeshaan. marka kilo halkan ku siiso waxaa kuu soo bixi doono details la xiriiro account-kaaga. mathalan waxyaabaha hadda aan ka rabno waxay tahay inaan sameyno multi factor authentication for root user ama account-ka root account inaan u sameyno multi factor authentication. okay waxaa tagtaa marka meeshaan ay ku qoran tahay hadda sa arkayso ana account-kayga ma lahan you don't have multi factor assignment. marka keliya waxaa samaysaa halkan tag waxaa dhahdaa marka assign MFA dheh assign MFA. marka assign MFA dhahdo mathalan meesha magac isaga bixi waxaa dhahdaa mathalan mobile ama my app waxaa doonto bixi wuxuu ku weydiinayaa marka maxaa adeegsanaysaa ma waxaa adeegsanaysaa hardware waxaa jira qalab yar oo number generate garanaya aad adeegsanaysid ama waxaa adeegsanaysaa mathalan application ama waxaa adeegsanaysaa passkey oo security key kan ba hadda inaga adeegsanayna kan waa application kan ba hadda awoodna waa authenticator app. mathalan tusaale ahaan oo kale qof kasta hadda waxaan rajeynayaa haddaadan already samaysan ina waxaad aan sameyn ila sameyso waxaad tagtaa Google Play-ga tag haddaa iPhone haysatana meesha mathalan application-ka laga soo dejiyay tag waxaa mathalan ii raadisaa marka application ku magacaaban authenticator. mathalan hadda sergi ku wada sameyno waxaan leeyahay authenticator app haddaan dhaho hadda kan oo kale waa Microsoft midkan aan isticmaala aniga mathalan saa igula ogaataan waa midkan midka iska leh iconka sawirkan iska leh ka raadi mobilkaaga soona deji. markaad soo dejiso applicationkan oo applicationka kuu soo dego waxaa sameynaysaa sida tan afwan mathalan authenticator app ayaad dooratay kadib waxaad dhahdaa next dheh markaa next dhahdo wuxuu kuu soo saaraya meeshaan barcode ayuu kuu saarayaa barcode-kan scan ku samee mathalan tusaale ahaan applicationka aad soo dejisay markaa furto install gareyso oo aa furto wuxuu ku siinaya option ah meesha hoose waxaa ku qoran plus markaad taabato
wuxuu kuu soo saarayaa scan QR code مثلا sida scan u samayso camera ayaa furaysaa waa scan garaynaysaa marka مثلا tusaale ahaan hadda aan scan garay hadda aniga Eh, sidoo kale haddaan dhaho back saa u garto waxaan leeyahay assign multifactor mar kale waxaan u bixinayaa tusaale ahaan AWS top empower مثلا magacan ayuu application kaga soo muuqan doonaa waxaan dooranayaa applicationka ayaan dooranaya kadib waxaan leeyahay next marka next dhaho hadda aniga mobilkii uu ii daaran yahay kamerada applicationkan galay scankaa doortay hadda waa scan garanaya marka scankii hadda waan sameeyey hadda waxaa kaga jeeda teleefankayga AWS top empower inuu account ku xirmay taa waa midda koowaad waxay imaanaysaa meeshan مثلا accountku applicationka wuxuu generate gareynayaa each مثلا 30 second ama 1 minute oo kale number marka numberadaas ayaa halkan ku qoraysaa marka hadda numberka haddaan qoro waxaan gelinayaa مثلا waxaan leeyahay 48905 okay numberka hore waan geliyey number kale ayaan sugayaa nambara haddaan qoraayo waa auto generated applicationka haddaad soo dejisaan waa arkaysaan oo akoonkaaga ku xirto nambaradan si random ayuu u generate garanaya each 30 second okay hadda waxaan gelinayaa mar kale 912171 kadib waxaan leeyahay add okay hadda muxuu dhaha marka multi-factor device assigning macnaha hadda akoonkay markaan soo galaayo waxaan kusoo gali doonaa multi-factor authentication siduu noqonayaa marka multi-factor authenticationka taana aan testi ku sameyno waxaan leeyahay sign out ayaan leeyahay hadda markaan dib usoo galaayo ila fiiri markaan dib usoo galaayo hadda waan baranay userasi si u kala duwan yihiin inaga hadda waxaan ku galaynaa waa root userkaan ku galaynaa next aan dhaho passwordka markaan geliyo hadda hore igama gelin maxuu ii soo saaray marka multi-factor authentication korka geli numberka meesha ka soo baxayan gelinayaa marka 451199 waa numberka hadda ii muuqdo markaan hadda aan geliyo waxay leeyihiin مثلا waa gashay taa waa midda koowaad hadda waxaan protection ku sameynay root accountiga waxaan u sameynay multi-factor authentication taan soo baranayna multi-factor authenticationka wuxuu ka hadlayaa in combination lagu sameeyo methodska kala duwan ee multi-factor authenticationka noocyo kala duwan okay waxaan sii guda galayaa marka hadda tobickiisi kale aan ka niqaashnay aan hadda bilaawna مثلا sida user loo abuuro waxaan user sameynaynaa oo lagu magacaabo cumar ayaan account u sameynaynaa sida userka cumar lagu magacaabo ama aamino ama axmed si account ugu sameyso waxaad tagaysaa مثلا marka accountka soo gasho waxaad tagaysaa مثلا halkan sergi ku sameysaa IAM haddaad ku qorto waxaa kuu soo baxay IAM keli ku sii halkan markaa sida sameyso hadda waxaan ku jirnaa مثلا IAM-ka ayaan ku jirnaa okay okay hadda waxaad ii sameysaa marka meesha marka inta soo gasho waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay users ayaad tagaysaa hadda waxaad arkaysaa wax user ah oo systemka hadda ama accountka ku jiro ma jiro waxaan leenahay create user ayaan sameynaya مثلا kasoo qaada userka hadda tusaale kusoo qaadanay waa cumar aan u bixiyo waxaan leeyahay مثلا halkan check saar ilaa waxaan rabnaa inuu soo galo AWS console inuu soo galo ayaan rabnaa halkan check ii saar marka halkan check aad saarto مثلا tusaale ahaan waxaad leedahay anina abuur ayaan rabaa userka lagu magacaabo IAM user halkaas ayaad dooranaysaa kadib wuxuu ku leeyahay passwordkiisa ma aniga ayaa generate ku sameeyo si automatic ah mise adiga ayaa password siinaya mise aniga ayaa password siinaya tusaale ahaan waxaan leeyahay passwordka cumar waa sidatan real ahaan markii aa mashruuc real ka shaqeynayso
userka marka account u sameyso marka account u sameyso ama adiga passwordka qor ama systemka generate ku sameeya passwordka marba passwordkaas waa inuu user iska bedelaa saa darteed meesha maxaa saaran boxkan iska fiir waxaa saaran user must create new password user asaga ayaa sameyso doono password cusub oo ma dhaceyso adiga inaad tahay systemka admin aa ka tahay shirkadda aad taqaano dhammaan shaqaalaha shirkadda oo dhan baaswordooda taas suuragal maaha waa in user kasta marka account u sameynayso baasword waxaa u sameynaysaa oo temporary ah oo waqti intuu account kasoo galaya ah kadib waxaa leedahay halkan check ha ka qaadan halkan check saar userka waa inuu baasword asaga sameysaa hadda aan check saaro saa u aragno userka markuu soo galayo iyo siduu noqonay kadib waxaa leedahay next markaa next dhahdo halka wuxuu inoo keeni doona dhowr optionska hadda muhiimadani ma aha wuxuu ku leeyahay group ku biiri userka permission hor u jira soo koobiyey iyo arrimaha laakiin hadda ani hadda ma sameynayo waxaan leeyahay next ayaan sii leeyahay markaan next dhaho halkan waxaa arkaysaa matalan tusaale ahaan oo kale inuu ii keenayo create user tagna u sameyn karna tagna waqti kale aan ka hadli doonaa waxaan leeyahay create user okay hadda waxaan sameynay user lagu magacaabo cumar ayaan account u sameynay userka email u diri kartaa hadda halkan kilo ku siiso email waxa u diri kartaa email waxa u tagayo oo detailskan oo dhan ay ku jiraan waxaa leeyahay matalan URL kan soo gal hadda xasuustaan kan waa account ID-gi URL kan ayuu soo galaya userka username uu kusoo galay waa kan passwordkan waa kan tusaale ahaan markaan sidaan kusoo galo userka muxuu sameynayaa marka aan simulate gareyno hadda waxaan furay ani page kale aan furay sidaan usoo galno wuxuu qorayaa userka account ID-ga ayuu qorayaa sidaan hor usoo baranay kadib wuxuu qorayaa matalan usernamekiisa waa cumar passwordkii hadda aan u sameeyey ayuu gelinayaa markuu password geliyo kadib wuxuu leeyahay sign in. Okay, aan iska soxo passwordka kadib waxaan leeyahay sign in. Okay, hadda markuu userka soo gala accountka waxaa leeyahay cumarow fadlan iska bedel passwordkaaga old password waa maxay waa midku admin kusoo sameeyey adiga ka admin ahaan userka passwordka u sameysay waa halkan new password ayuu dooranayaa marka new password ayuu dooranayaa okay kadib wuxuu leeyahay confirm hadda cumar wuxuu iska bedelay passwordkii iska bedelay passwordkan cusub uu hadda cumar uu samaystay adiga ka admin ahaan ma taqaanin passwordkan cumar keliya yaqaan taana waxay keenaysaa in userkasta passwordkiisa uu gaar ahaado oo aysan ay dhicin user maqan oo accountkiisa qof kale uu galo oo tusaale ahaan okay مثلا hadda cumar maadaama uu yahay marka ugu horeyso account aan u sameyno uu applicationka soo galo waxaad arkaysaa cumar inuusan permission badan lahayn مثلا tusaale ahaan kasoo qaadba ha galo EC2 ha galo ha isku dayo cumar inuu مثلا EC2 instance abuuro مثلا create EC2 instance ama instance hor u jirto oo kale inuu arko arrimahaas oo dhan waxaa arki doonaa hadda waxay waxa usoo bixi doonta cumar wax kasto waxaa lahaa doonaan qoraal casaan ah oranayo uma lihid wax permission ah inaad sameyso actionkan macnaheedu waxay tahay marka arrinta userka wuxuu u baahnaan doonaa marka permission hadda wax permission ma siinin userka cumar aan aragna marka without permission sida uu yahay hadda xaaladiisa okay مثلا tusaale ahaan haddaan dhaho lange instance haddaan dhaho hadda waxaa kuu muuqato kacan inuu wax samey karo laakiin aan sii wadno مثلا kasoo qaad web مثلا windows server ha isku day inuu sameeyo waxa kas haddaan defaultiga ku qaadano مثلا tusaale ahaan oo kale halkan qaadano isla markaad waxaad arkaysaa wax kasta hadda aad meesha ka qaban karno hadda xataa dhaho create new key pair مثلا my key haddoo dhaho tusaale ahaan create ma abuuri karo meesha maxaa kuu qoran you are not authorized ereyga authorize isoo qaad marka haddaan darsiga soo sharxayna maxaan soo sheegnay authorization authorization waa maxay userka markii authentication uu sameeyo aan hubino aan kuma uu yahay markaan hubino uu soo galo markuu userka soo galo systemka authorization ma uu leeyahay actionka uu sameynayo hadda cumar wax ka maqan waa maxay authorization ka maqan hadda kii ma sameyn karo waxna ma sameyn karo okay مثلا cumar hadda intaa ka baxo ha galo مثلا tusaale ahaan IAM مثلا ha is dhaho user cusub samey ama account cusub sameyso IAM waa meesha laga sameynayo
مثلا marka halkan tagto مثلا tusaale ahaan oo kale wuxuu isku dayay مثلا cumar inuu sameeyo inuu account cusub sameeyo xitaa hadda ila aragtaan userada shirkadda company u abuuray xitaa ma arki karo مثلا users markuu ku dhuftay maxaa usoo baxay access denied oo مثلا maxaa maqan permission ayaa maqan marka ereyga permission wuxuu la mid yahay waa authorizationka ayaa ka maqan aan taas keer sameyna marka مثلا tusaale ahaan oo kale cumar aan siino read only aan u siino inuu aqri karo keliya userada companyga ku abuuran macnaha permission ayaan siinayna mid hadda aan tago hadda waxaan kusoo laabtay accountka root kusoo laabtay waxaan tagaya userka cumar ayaan dul tagayaa waxaan fiirinaa marka hadda userka cumar ayaan dul tago cumar default ahaan permissionka keliya uu leeyahay waa maxay inuu passwordkiisa bedeli karo haddaa xasuustaan arrintaana inaga markaan checkboxka soo saarnay markaan account u sameynaynay waxaan dhahnay user cumar ha iska bedel passwordka taa laftiga waxay u baahan tahay permissionka marka si automatic ay u siiyey ilaan haddii asoon permissionka lahayn muusan awoodi lahayn inuu siiyo inuu bedelo cumar passwordka inuu iska bedelo muusan awoodi lahayn sidoo kale hadda maadaama aniga aan root userka ku jiro cumar waxaan ku qasbi karaa inuu isticmaalo multi factor authentication haddaan aan enable gareeyo cumar aan u enable gareeyo macnaheedu waxay tahay userka cumar markuu soo galaayo waxaa la dhihi doonaa waxaa samaysataa multi factor authentication samey مثلا هذا waxay qosay kaliya inaan tago permissionka waxaan leeyahay permission markaan ku dhufto add permission hadda waxaan siinaya userkan permission ayaan siinaya مثلا waxaan leeyahay attach policy ayaan waa policy permission authorization waa erey isku soo laalaabanaya waa isku mid ah oo hal hadaf leh marka permissionka ay userka siinayso laba u kala saari karnaa permission adiga aad sameynaysid oo customize aad ku sameynayso ama permissions badan oo shirkadda kuusii diyaarisay ee jira waa dooranaysaa keliya waxaa leedahay userka fulan waxaa iisa permission hebel isii permission way badan yihiin مثلا tusaale ahaan waxaad arkaysaa permissions oo kale pages ay sii gaarayaan waa ilaa hadda inta noo muuqato waa 60 leh مثلا tusaale ahaan halkan waxaa ka raadisaa مثلا wixii qusay EC2 hadda EC2 ku dhufto aan enter dhaho مثلا waxaa ii soo baxay wax allaale wixii quseeyo oo permission ah oo built in ah type waa maxay AWS manager inaga maanan sameynin permissionkan adiga permission ama policy from scratch waa ka sameyn kartaa tan tusaale waa qaadan doonaa laakiin hadda policykan way diyaarsan yihiin inta badanna policykan baa isticmaalaysaa hadda مثلا haddaa mid idin tuso kuwa commonka ah مثلا halkan waxaa kuu qoran Amazon EC2 full access kan hadda userka cumar aan siiyo macnaheedu waa maxay macnaheedu waxaan check saaraynaa oo case 1 معناه عمر وحاسس full access for EC2 wax alla wixii EC2 ayuu sameyn karaa wuu tiri karaa wuu abuuri karaa EC2 ayuu wuxuu ka yahay admin ama full access u leeyahay taa mid labo waxaa arkaysaa مثلا meeshan sidoo kale hadda tan aan check ku sameeyo مثلا halkan maxaa ku qoran Amazon EC2 read only access hadda kan check siiyo waa maxay cumar sax ma abuuri karo EC2 ma abuuri karo laakiin EC2 ma abuuran ama informationka la xiriiro EC2 ayuu naga jeegari karaa kan hadda ila aragtan waa kee waa userka Axmed aan ugu talagalnay userka Axmed oo consultantiga ah inuu EC2 ga sameeyo okay هذا مثلا hadda halkan ku qoro IAM hadda ku qoro enter له عفوا هذا IAM ku qoro waxaa arkaysaa مثلا IAM full access kan case-kan hadda imaano يا إنه يا هي سي full access for IM user أبوري كرا تيري كرا حكا بدلي كرا وحوها user كآمنة user كآمنة وكما أكان أصميسو برميش كان أياسينيسا مكا كليك سيسو كديب وحا تاقيسا ماشا هوسي وحا ليدا هنكس خلاص سيف user كآمنة وحاسي سي full access إني يحتري كرتو وحكا بدلي كرتو وحا لالوحي لحريرو IAM و Identity Access Management User user إي groups كا إي permission code مثلا صالحان هذا حركة waxaa ka hooseeya IAM read only access مثلا kan oo kale hadaa click ku siiyo muxuu inoo ahaa case-kii waxa ahaa cabdi in la siiyo consultant oo ah read only aan kusoo heshiinay oo loo siiyo IAM-ka inuu aqri karo keliya oosan waxba asaga ka bedeli karin laakiin aamin uu ku saacidayo oo u monitor gareynayo configuration-ka aamin oo dhihi karo مثلا halka wax ka bedel halka baa qalad ka sameysay halka wax ka sameey ase wax ma sameyn karo laakiin shirkaddu waxay kula heshiisay ninkaas in uu consultant si shirkadda soo galo ka jeeg gareeyo
wixii ka qaldan wixii مثلا ay si wanaagsan usii samayn karaan مثلا سؤال ahaan oo kale hadda halkan tagto ilaa hadda waxaan ku jirnaa waa permissionka مثلا hadda halkan tagto hadda waxaan aniga bas tusaale kuu siiyey EC2 iyo waxaan tusaale kuu siiyey IM waxaa raadi kartaa wixii kugu soo dhaco oo مثلا service ah oo la xiriir مثلا tusaale ahaan VPC waxaan naqaanaa VPC waa jabtaan soo qaadanay VPC oo kale waxaa sii qofba waxa u sii kartaa full access inuu ka shaqeeyo keliya for VPC waxaa sii kartaa sidoo kale read only waxaa sii kartaa مثلا wixii la xiriiro VPC-ga sidoo kale arrimo badan ayaa meeshan jira laakiin hadda aniga keli waxaan u rabaa waxay tahay oo aan rabaa inuu kuuso in wax sahlan yihiin qof ma jiro waxaan u dhex xifdiyey yaqaano ma jiro biri markii taaska lagu dhowr userkaas waxaan u rabnaa inuu waxa keliya ka awoodi karo keliya search samey permissionka quseys waa maxay haddaa hesho permission already shirkadda kuusii diyaarisay ay keliya dooranayso waa alxamdulilah haddiisan jirin soo maha waan baran doonaa sida custom policy loo sameeyo attachna loogu sameeyo okay مثلا هذا أن براكتيس سمينه مثلا سؤال هان أو كله أن يوزر كعمر سيو وحي كوساب سن إي سي 2 مثلا أنت إي سي 2 سمي أن سينين هذا وحن كجرا أن يوزر كعمر كجرا هذا سأدار كيس هذا ديب ودقو هذا مثلا أكاونك وحن أقول جيدا يوزر كعمر كجرا هذا أن قرب مثلا إي سي 2 هذا أن قرب وحير كدي بحن أركينا إن أن أبوري كرين وح إي سي 2 إنه سن يوزر كأبوري كرين مثلا سؤال هان هذا كان كيلو كسيو waxaan sida aragnay userka cumar markaan launch dhahnay xitaa muusan awoodin inuu abuuro key inuu abuuro hadda waxaan siinaynaa marka cumar waan isla soo aragnay laakiin hadda aan ku yar celi keliya haddii aad مثلا iga yara maqnid oo kale ama aadan ila fahmin مثلا my key processka waan naqaanaa oo loo sameeyo مثلا virtual machine markuu create dhaho waxaa soo baxayso inuusan wax permission u lahayn iska badaa inuu dhaho launch inuu dhaho iska badaa markuu launch dhaho asagna sidoo kale uma lahanba wax oo ah okay waxa imaanayna meeshan waxa sheekada isku imaanaysa marka inaan Cumar siino EC2 inaan ka siino full access hada EC2 ayaan kala ku siiyey waxa arkaysaa مثلا EC2 inaan u siinay full access okay markaan full access u siinay waxaan leenahay marka next kadib waxaan leeyahay add permission خلاص waa inta kaliya wax kale ma kaaga baahan hadda Cumar wax ka soo sameyn kara oo la xiriir EC2 haddaan tago account Cumar haddaan mar kale ku laabto kaliya waxaan back ayaan leeyahay refresh ayaan iska leeyahay marka refresh dhaho wax badan oo مثلا kalarka casaanka ahaad soo baxay ayaa inaga bixi doona haddaan مثلا mar kale okay hadda waxaan leeyahay launch instance waxaan u bixinayaa مثلا tusaale ahaan my web tusaale ahaan haddaan doorto Windows Server oo soo dego free tirada ku socdo waxaan leeyahay create waxaan leeyahay key for web wuxuu doona ha ahaado waxaan leeyahay create had maxaa dhacay isla markii waxaa samaysmay key waa samaysmay without any error hadda waxaan inoo soo bixisay user not authorized hadda sii socdo defaultiga ku qaado hadda muhiim maaha aan muhiimadeeni maaha sida مثلا instance loo sameeyo la hadda waxaa arkaysaa wadadii wuxuu ku socdaa instance-ga lagu sameeyo la hadda waxaa arkaysaa instance line ay u dhiman isla markaa waxaa arkaysaa waa success wuxuu tagi karaa instanceska wuxuu arki karaa marka hadda instance u abuuray waxaa arkaysaa public ay leedahay wuu tiri karaa مثلا tusaale ahaan hadduu furo instance wuxuu dhihi karaa terminate ayuu dhihi karaa delete ayuu samayn karaa okay مثلا عمر كبدله هذا permission كبدله هذا وحول لها full access أيوة لها full access كمركة عن كتير وحن ليه remove وعن كتير full access كي هذا full access ملهن سادرت وحن سينه read only يسينه read only يسينه وحن ليه مثلا سؤالهن attach policy وحن ليه مثلا EC2 وحن ليه مثلا هذا وحن قادته read only قاضي مثلا Amazon EC2 read only access يعني تسين اوكي سؤال شو حتى مركه هذا ما دام برميشن كعمر وس بدلي وقاتي read only كليه هذا انسنسي اسق ابور وحير كهر ميو تري كرا جوابته امي هو ابوري وارغني وانسنسي وارني لكن هذا توصله مثلا انسنسي كان اسكله ريفرش انسنسي هدوس له تر ما تري كرا مركه مثلا صالحان هدو imaado halkan oo dhaho مثلا instance terminate ku samee oo dhaho terminate
waxyar kadib waxaan arki doonaa waxaa usoo baxi doona waxaan o dhan waxaan maxaa ku jira marka you are not authorized waxaan dambe o dhan iska ilow waa you are not authorized aan ku soo celiyo marka userka cumar aan dhaho khalaas mathalan permissionkaaga hor kusoo laabo hadda hadda dhaho remove kadib haddaan dhaho mathalan tusaale ahaan oo kale add permission mar kale oo aan dhaho attach aan dhaho sidoo kale ec2 mar labaad hadda waxaan leeyahay waxaa kusoo laabataa amazon ec2 full access kusoo laabo ayaan leeyahay next add permission haddaan accountka cumar soo galo mar kale waxaan leeyahay keliya refresh hadda wuxuu soo qaatay permissionka ah full access inuu wax kasta ka sameyn karo ec2ga haddaan dhaho instance aan dhaho terminate kadibna terminate hadda waxaa arkaysaa isla marka stateka hadda waa running wuxuu isku bedeli doonaa shutdown macna actionka uu qaatay wuu tiriya okay hadda maxaan practice ku sameynay sax laba user oo kala duwan maanan sameynin oo cumar iyo axmed cumar keliya waxaan practice ku sameeyey marna inaan ec2 u siiyey full access marna u siiyey read only laga ilfahmi kartaa in userka shirkad company marka la joogo userna wuxuu leeyahay read only user wuxuu leeyahay full access user wuxuu leeyahay shaqo mucayan ah permissionska meesha ku qoran oo arki kartaa waa permissions aad u badan si lamid ah isla userka cumar aan ku practice garayno sidoo kale hadda userka cumar sax ha u lahaado ec2 ha u lahaado full access ha u lahaado waxaa tiri karo waxaa sameyn karo oo ec2 quseeya user ma abuuri karaa marka waa isla userka cumar mid hadda halkan imaado macnaheeda kama dhigno haddaa hal task lagu siiyo full access in wax kasta aa u leedahay full access ma aha maxaa taa ula jeedaa mathalan tusaale ahaan hadda userka cumar waxaan naqaanaa in uu u leeyahay full access for ec2 laakiin markuu soo galay dashboardkan isla markan waxaa usoo baxay wax kasto ee ku saabsan access denied waxyar kadib marka halkan users inooga soo baxaan waxaan arki doonaa inuusan ba user samey karin userada meesha ku jirana inuusan ba arki karin xitaa uma lahan read only uma lahan kordhan iska fiiri user hadda aan ku jiro waa cumar hadda markaan userka aan keli ku siino aan ka bedelna marka userka cumar hadda arkaysa waa access denied waxaan siinaa marka userka cumar permission ayaan siinayaa permissionka hadda aan siinay keliya waa read only inuu ku sameeyo wixii la xiriiro matalan im-ka hadda halka imaado waxaan leeyahay im read only si keliya hadda ma siinayno wax oo full access ah just waxaan siinayaa okay waxaa imaanaya matalan userka cumar waxyarka hore muusan arki karin xataa accountka matalan userada haddaan dhaho refresh wuxuu arki doonaa userada companiga ee u abuuran sida cumar iyo cali halkan aad usoo bixi doonaa waxyar kadib muusan arki karin taa hadda waxaan siinay read only ayaan siinay isku day markaad inuu user abuuro wuu arki karaa sax wuu aqri karaa hadduu dho matalan create user cusub matalan tusaale ahaan wuxuu abuuray account wuxuu u abuuray userka aamina matalan tusaale ahaan custom password ayuu sameeyey ama auto generate aan qaato dhib ma lahan kadib next aan dhaho kadib aan dhaho next kadib aan dhaho create user shirkadda matalan inkastoo ay kala duwan shirkadaha waxaa arkaysa matalan bilowga hore in userka wax kas uu sameyn karo laakiin actionka ugu dambeeya ayaa laga mamnuucaya marka qaarna bilowga hore ma soo gali karo waa xasba ayaga si u implementi karayaan laakiin hadda waxaa meesha inaga soo baxan you don't have permission to create permission aan siina marka waxaan leenahay userka cumar qaado permission ah inaa wax sameyn karto oo waxaan ula jeedaa wixii ku saabsan im-ka inaa maamuli karto si qaldan ba qol im haddaa hoos imaado waxaan leeyahay waxaa qaataa full access for im okay kadib waxaan leeyahay permission haddaan kusoo accountka cumar haddaan kusoo laabto oo mathalan aan hoos imaado marka haddaan loo keliya haddaan dhaho hadda waxyar kore maxaa soo baxayay waxyar kore waxaa soo baxaya error hadda laakiin u qaatay userka marka aamin uu sameeyena auto generated passwordkan waa auto generated just ad email u diraysaa detailskan oo dhan emailka uu tagayaan userka wuxuu soo galaya marka consolekan linkigan ayuu soo galayaa hadda linkigan keli ku siiyo oo aan la tagay halkan haddaan la tago waxaa rabaa inaan ku yaro tuso keliya new hadda halkan keli ku siiyo linkiga linkiga muxuu la mid yahay
linka wuxuu la mid yahay adoo account ID halkan ku qorta waa inta keliya kadib waxaa halkan waxaa lagu qoraya aamina kadibna halkan intaas iyago ayaa lagu sii dhamaynaya marka okay assignmentiga darsiga muxuu noqonayaa marka assignmentiga darsigan hadda ani hal user aan ku practice gareeyey waxaan rabaa assignmentiga darsigan sidata inuu noqdo mathalan tusaale ahaan hadda intaan assignment idin dirin hal permission ayaan rabaa sidoo kale inaan idin tuso intaan ka bixin mathalan tusaale ahaan haddaan dhaho full access waxaa arkaysaa mathalan in aad sii karto accountka ama userka inaad sii karto full access ama admin oo full access inaad sii karto tan assignment ahaan idin kuu diray keliya halkan ay ka raadinaysaan assignmentiga wuxuu noqonayaa marka sidatan halkan aan wado waxaan kaa rabaa keliya case 1 inaa iisoo practice garayso screenshot iga soo qaad case 2 sidoo kale case 3 sidoo kale iyo case 4 waxaa iigu sii dartaa case 5 iigu sii dar مثلا case 5 igu dar case 5 waxaan kaa rabaa inaa abuurto user lagu magacaabo kasoo qaad مثلا magacaaga oo kale ama your name مثلا tusaale ahaan magacaaga kadib waxaa siisaa grant full access full access halka dhiilad specific taas dhiilad kaha sameey kaha sameey kaha sameeyo user cusub waxaa sameysaa oo leh full access midna ha ku qaldamin waxaa already haystaa adiga root accountiga haystaa samee user kala samee oo leh full access la samee badanaa kambaniyada ma isticmaalaan accountka rootka lama isticmaalo xitaa haddaa kambaniga u sameyso account oo root account ka sameyso adiga waxaad sameysanaysaa tusaalahan hadiiba policy kambaniga oranayo inaad leedahay full access account cusub ayaa sameysanaysaa oo leh full access kaaba isticmaalaysaa back end ahaan accountka marka rootka wuxuu noqonayaa mid qarsan ayuu noqonayaa assignment insha Allah taala sidoo kale ii soo diro haddana waxaan furayaa insha Allah wixii su'aalaha